dunida dembiyada abaabulan inta badan waxaa lagu yaqaanaa rag hubaysan xoog iyo xadgudubyo ku dhisan. marka aad maqasho ereyga kaartal maskaxdaada waxaa ku soo dhacaysa rag hubaysan, dagaal iyo daroogo. laakiin maanta taariikhdu waxay qortay bog cusub. hoggaankana waxaa qabsaday dumar kuwa oo wajahaya dagaallo qarsoon islamarkaana bedelay nidaamka dembiyada abaabulan. waa hogaamiyeyaal dumar ah oo kaartalyo xoog leh ka dhex abuuray Mexico iyo Latin America. waxaana la isweydiinayaa maxay ka dhigan tahay marka haweenku ay hoggaanka u qabtaan kaartalyo dhiig badan ku daatay. magacaygu waa Cabdiweli Macalin Maalto, halkanina waa Hoggaan 24 Media. haddaba haddii aad u aragteen muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u ogaano tirada dananaysa. haddii ay tahay markii kuugu horraysa soo booqatay channelkeenna, sabskraib saar si aad u heshid muuqaalada cusub aan soo gelino. sheer dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. daraasado iyo warbixinno cusub ayaa muujinaya in haween badan ay ka soo muuqdeen safafka hore ee dembiyada abaabulan. kuwo badan waxay ku bilaabeen doorka xiriirinta iyo dhaqaalaha, balse maanta waxay hoggaaminayaan ciidan hubaysan, waxayna maamulayaan suuqyada daroogada, islamarkaana ay go'aanada ka gaarayaan dagaallada u dhexeeya kaartalyada. waxaa jira magacyo caan ka noqday sida La Chapa iyo La Madrina, kuwaasoo loo aqoonsaday inay yihiin maskaxda ka dambaysa dhaqaalaha iyo siyaasadda kaartalyada. haddaba aynu eegno waa maxay kaartal. kaartalku waa koox ama urur dad isku raacsan oo si qarsoodi ah ama sharci darro ah u wada shaqeeya si ay u xakameeyaan ganacsi gaar ah, suuq ama badeecad. dhanka kale, kaartalku waa urur abaabulan oo inta badan sharci darro ku shaqeeya, gaar ahaan daroogada, kaas oo isticmaala xoog, lacag iyo xiriir siyaasadeed si uu u xakameeyo suuqa iyo awooddiisa. marka la yidhaahda kaartal, inta badan waxaa loola jeedaa kooxaha daroogada iyo dembiyada abaabulan, gaar ahaan kuwa Latin America sida Mexico, Colombiya iyo Baraasiil. ereyga kaartal asal ahaan wuxuu ka yimid luuqadda Isbaanishka, micnihiisuna waa xiriir ama heshiis dad ama shirkado u dhexeeya. tusaale ahaan, kaartalka Medellin oo uu hoggaaminayay Pablo Escobar wuxuu ahaa mid ka mid ah kaartalyadii ugu awoodda badnaa taariikhda. wuxuu xakamay jiray inta badan kookaayiinka caalamka laga isticmaalo intii lagu guda jiray sannaddii 1980meeyadii. haddaba maxaa keenay inay soo bataan dumarka hoggaaminaya kaartalyada? khubro dhanka amniga ah oo ka soo jeeda Latin America ayaa sheegaya in laba arrimood sabab u yihiin arrintan: cadaadiska dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah kaartalyada ragga oo hoggaamiyeyaal badan oo rag ah lagu dilay ama xabsi loo taxaabay, taas oo waddada u furtay haweenkii xiriirada gudaha la lahaa, iyo dumarka oo aan si weyn loo tuhmin. intii ay raggu ku jireen liiska madow ee booliska, haweenka ayaa awood u yeeshay inay dhaqaalaha, hubka iyo shabakadaha xakameeyaan, iyagoo adeegsanaya muuqaal bulsho oo aan si toos ah loogu eedayn karin. inkasta oo ay hoggaamiyeyaasha dumar aysan had iyo jeer ku shaqaynin xoog iyo cabsigelin joogto ah sida ragga, haddana waxay caan ku yihiin xeelad iyo sirdoon. waxay xoogga saaraan laaluushiya inay abuuraan xiriiro siyaasadeed. waxay si fiican u isticmaalaan maalgelinta dhaqaalaha cad si ay lacagta daroogada ugu rogaan ganacsiyo sharci ah. qaar badan waxay ku shaqeeyaan nidaam adag oo xirfad leh oona qarsoon, taas oo ka dhigaysa in kaartalyadoodu ay wakhti dheer sii jiraan. marka hoggaanka kaartalku uu gacanta u gala haween, su'aal ayaa ka dhalata taa oo ah: bulshadu ma u aragtaa dhibaato yar, mise waxay u aragtaa mid ka sii weyn tii hore? warbixinno ayaa sheegaya in qaabkooda maamul uu hoos u dhiga dagaallada hubaysan ee waddooyinka iyo goobaha ay ka taliyaan, balse taas kama dhigna in dhibaatadu yaraato. waxay kordhiyaan xakamaynta dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo saamaynta siyaasadeed, taas oo bulshada ku ridaysa halis ka duwan middii hore. mexico gudaheeda waxaa ka jiray hoggaamiye dumar ah oo lagu naanayso La Reina del Pacifico, taasoo muddo dheer loo arkayay inay tahay boqoradda xiriirka daroogada. iyadu waxay ahayd isku xidha haween ee u dhexeeya South America iyo Mexico. waxaa kaloo jiray haween kale oo hoggaamiyeyaal ka noqday gudaha Baraasiil iyo Colombiya, kuwaasoo loo aqoonsaday inay yihiin maskaxda ka dambaysa, halka raggu ahaayeen gacmaha dhiigga leh. khubaro badan waxay aaminsan yihiin in sannadaha soo socda aan arki doonno koror weyn oo ah
haweenka hogaaminaya kaartalyo iyadoo sababtuna tahay in dumar badan oo ka dhashay qoysaska kaartalka ah ay u arkaan hoggaanka sidii dhaxalka. siyaasiyiinta iyo booliska oo ka cabsi qaba inay si fudud u bartilmaameedsadaan dumarka, iyo sidoo kale isbeddelka cusub ee istaraatiijiyadaha dembiyada abaabulan. kaartalka cusub ee ay dumarka hogaaminayaan waa wejiga cusub ee dembiyada caalamiga ah, waxa uuna dadka tusayaa in dagaalka ka dhanka daroogada uusan ahayn oo keliya mid ragga lagu bartilmaameedsado. maanta haweenka ayaa si buuxda u soo galay ciyaarta, iyagoo hogaaminaya, qorsheynayana, gacantana ku haya $100 milyan. waxaa la isweydiinayaa dunida ma u diyaar garowday dagaal cusub oo ka dhan ah kaartalyada ay dumarka hogaaminayaan. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheergaranaya muuqaalkan. mahadsanid.